gobolka geeska Afrika oo muddo ah aagga colaadaha ee qaaraddan Afrika qaatana gargaarka ugu badan ee aadanuhu ay bixiyaan kuna yaalaan dawladda si baan ugu muransan xuduudaha ka dhaxeeya ay hadda u muuqda inay dib uga curteen isdiidooyin u dhaxeeya wadamada gobolka oo sanadihii u dambeeyay yeelanaya xiriir diblomaasiyadeed iyo iskaashi dhinacyada siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha kadib damaca badraadinta Ethiopia oo si baan kor ugu qaadayay bilihii la soo dhaafay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed tan iyo imaanshihii xukunka Addis Ababa ma uusan gelin nasiina dheer waxaana maamulay sanadihii dambe colaadihii ugu waaweynaa ee ka dhacay gudaha dalkiisa toddobaadkan walaaca laga qabo kor u kaca xiisadda gobolka ayaa sare u kacday kadib markii khilaaf xooggan uu soo kala dhex galay Soomaaliya iyo Ethiopia kaasoo ka dhashay isafgarad ay Addis Ababa ku kala saxiideen bilowgii sanadkan cusub ee 2024 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed isafgaradka la saxay waxa uu dhigayaa in Ethiopia saldhig ciidan iyo dekad ganacsi ay ka samaysatay xeebaha gobolada waqooyi ee Soomaaliya taas beddelkeedana Addis Ababa ay dadaal geliso aqoonsi u raadinta damaca Hargeysa ee la xiriiray inay ka go'aan Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya taasoo si baan uga soo horjeeda dhammaan waxyaabaha ay ku midaysan yihiin wadamada caalamiga gaar ahaan ururka midowga Afrika igad iyo gobolka damaca badraadinta Ethiopia iyo dandaasiga Abiy Ahmed dhaqaaqa Addis Ababa ee la xiriiray raadinta aag ay ka hesho badda ma aha wax cusub balse damaca ayaa dib u xoogaystay markii uu xukunka Ethiopia yimid Abiy Ahmed oo dadka yaqaana ku tilmaamaan naadu fudud oo aan waaqici ahayn haddana isku daya tallaabo kasta oo uu qaado sidii uu meel marka ka dhigi lahaa Abiy oo ka hadlaya marar badan fagaarayaal gudaha dalkiisa oo carabka ku adkeeyay in laga maarmaan tahay in Ethiopia ay hesho bad gaar ahaan xeebaha badda cas ee ku dhow aagga ganacsiga caalamiga ee Bawmantab kama uusan labalabayn caddeynta inay suurtagal tahay in helista bad ay Ethiopia u qaado dariiq walba sida inay isku dayi doonaan xoog haddii la waayo xeelad heshiis lagu yahay Addis Ababa ay ku bedelanayso wax u dhigma waxa laga siiyay xeebaha Soomaaliya oo dal ku jira colaado gudaha lehna xeebaha ugu dheer ee qaaradda Afrika waxay ka mid ahayd doorashooyinka uu soo kordhiyay dadkiisana hordhigay Abiy Ahmed xilli bilo ka hor uu ka horaalaya baarlamaanka dalkiisa Soomaali lagu maqan yahay iyana iswada haysataa Soomaaliya waa mid ka mid ah dalalka gobolka ee ugu saameynta badan xagga siyaasadda iyo amniga waxa uu xuduud la leeyahay 3 ka mid ah wadamada gobolka oo saameyntooda ay culus tahay laakiin deganaanshaanta gudihiisa iyo hogaamiyaasheedu aan isku jiha ka ahayn waxay ka dhigaysaa wadan faragelinta u sahlan gudihiisa waxa ku sugan in ka badan 30,000 oo ciidamo shisheeye ah oo ay ku jiraan dalalka hadda shaki gelinaya qarnimadiisa ma ogtahay in adeega Faras Taxi uu noqday adeega taxi ugu wanaagsan Kenya Faras Taxi waxa ay macaamiisheeda siisaa qiimo dhimis aad u sareysa ilaa 30% sidoo kale trip walba aad qaadato waxaad helaysaa lacag Faras Miles lacagtaasi oo aad u bedelan karto kaarka ku hadalka internet ama M-Pesa madaxda Soomaalida waxa loo arkaa kuwa aan faham badan ka haysan arrimaha dul taagan ee geeska sidoo kale markasta la falgala dhacdooyinka aan san lahayn hiraal fog oo muujinaya mustaqbalka dhow iyo kan fogba sidaas oo kale siyaasadeeda arrimaha dibadda waxay ku jaango'an tahay nidaamka qabaliga aragti ku dhisan nacayb ama jacaylka hogaamiyaha xukunka jooga taas oo aysan gabi ahaan balahayn dalalka ay ku loolamayaan gobolka Masar iyo Ethiopia isaynta webiga Niilka Masar oo ah dal weyn oo saameyn kula gobolka ayuu kala dhaxeeyaa Ethiopia muddo dheer muran la xiriira biyo xireenka Abay ee Ethiopia ku leexsatay in badan oo ka bina biyaha webiga oo ay ku tiirsan yihiin inta badan Masaarida iyo Suudaan oo ka mid ah meelaha webigu maro dhawaanahan Masaarida ayaa xoog saaraysay inay aag military ka hesho Soomaaliya iyadoo loo marayo heshiis iskaashi dhanka amniga oo dhex mara Muqdisho iyo Qaahira haddii dawladda federaaliga ee Soomaaliya ogolaato in geeska Afrika Masaaridu ka helaan saldhig ciidan oo gudaha Soomaaliya waxa loo arkaa tallaabo kale oo albaabada u furayso colaad aan la saadaalin kan xilliga ay dhamaanayso oo ka qaraxda gobolka saameynna ku yeelan doonta dhammaan dalalka gobolkan ku yaala iyo guud ahaan caalamka Qaahira iyo ujeedooyinkeeda siyaasadeed waxaynu ku eegi doonaa warbixin gaar ahaan Soomaaliya faa'iido ma siin kartaa xilligan ayaanu faallaynaynaa Eritrea wacada uu aragtay Ethiopia Soomaaliyana fursad ka sii xaragta Eritrea oo ah dal dhifoon muddo dheer colaad kala dhaxaysay Ethiopia ayaa hadda u muuqda inay dib cagaha u saartay dhabaha iska dhicinta Ethiopiaanka kadib sanado uu jiray isfaham aan caloolfiyoobi lahayn una dhaxeeyay Abiy Ahmed iyo Siyaasa Fawarki labada hogaamiye oo isla jaan qaaday imaanshihii Abiy ee xafiiska Addis Ababa albaabadan oo furay xiriirka labada dhinac
waxay wada maamuleen dagaalkii gobolka Tigray oo mar kale waxay si baan haddana ugu culuubeen sida Abiy u maamulay xaaladda gobolka Amxaarada oo Eritrea ay u aragtay inay yihiin wadaag wanaagsan oo ay ku leedahay gudaha Ethiopia marka loo akhriyo siyaasadda ama xisaabta Tigrayga afwarka ayaa hadda gacan ku leh dagaalada ka soconaya deegaanka Amxaarada una dhaxeeya jamhadda qoomiga ee Fano iyo militariga federaaliga ee Ethiopia Eritrea waxay u aragtay Abiy Ahmed cadow weyn oo duulaan ku soo ah ayna laga maarmaan tahay in lagu jabiyo gudaha dalkiisa laguna loolamo Eritrea waxay xoog saaraysay sanadihii la soo dhaafay inay kobciso ama kor u qaado kaalinta gobolka ay ku leedahay Soomaaliya iyadoo u aragtay in noqon karto awood xooggan oo Ethiopia lagu dheeli tiro laakiin hogaamiyaasha Soomaalidu uma muuqdaan kuwa ka faa'iideysanaya jamnaanta mid ka mid ah hogaamiyaasha ugu mowqifka adag ee Geeska Afrika oo 5 sano ee la soo dhaafay u tababaray ciidamo ka badan 10,000 oo askari una qalabeeyay hay'ashee la kala diray oo aan laga faa'iideysan si socoshada dagaalada gudaha ee Ethiopia oo aan xasiloonayn sanadihii u dambeeyay waxa loo arkaa kuwa ibafur u noqon kara xiisad dagaal oo u dhaxaysa Addis Ababa iyo Asmara sidoo kale cadaadiska Abiy ka haysta dhinaca reer galbeedka ee inuu la dagaalamo afwarka ayaa ah mid sii kordhaya Djibouti oo nolosheeda la isku haysto Djibouti waa dal yar oo dhaca gobolka ahna dalka ugu badan ee ka faa'iideysta suuqa ganacsi ee Ethiopia oo ay ku nool yihiin ka badan 120 milyan oo qof balse isbedeladii ugu dambeeyay ee ka socda gobolka ayaa noqon kara bilowga maalmo adag oo Djiboutiyan ku wajihi doonaan in Ethiopia ay ku fakarto inay xoog ku qaadato qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya hay'ashee ku dhow dekadaha Camran ee Djibouti waxaa la aaminsan yahay inay tahay soo xiran dhammaystiran oo lagu samaynayo dekadaha deynta lagu dhisay ee Djibouti Masar Geel ayay u tahay geeri aan soo laabashanayn haddii damcan Ethiopia uu hirgalo xilli uu wali ciyaarayo kaarka dhexdhexaadka haddana talahuma waa inaysan Djibouti sii ahaan doonin dekada Camran haddii Ethiopia ay hesho dhulbadeed ay iyadu leedahay ugu dambeyn marka laga soo tago in Djibouti uu muran dhaleed kala dhaxeeya Eritrea oo ka haysata deegaano haddana dhaqdhaqaaqa cusub ee Ethiopia ayaa ku reebi doona saameyn baan waxaana dadka la socda arrimaha gobolku qabaan in Djibouti u baahan tahay siyaasad cad oo ku wajahan xiisadda gobolka taasoo ka badbaadin karta dabaylaha codaadeed ee saansaanteedu xilligan ay muuqato haddii aad ku nooshahay Amerika, Yurub, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeegga PayC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala ah EVC, Zaad, Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa PayC